halkan waa channelkina badweyn tube kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta ha joogtaan u diyaar garooba muuqaal kale cusub oo ku saabsan wararka siyaasadda Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn waqtigan waxaa kamid ah xog culus oo idinkaga haya villa Soomaaliya oo wada qorshe halis ku ah doorashada Hirshabelle iyo waliba caqabad kale oo soo baxaysa maxaad ka og tahay ujeedka qarsoon Xaafi Axmed Madoobe u tagayeen magaalada Garowe ee shirka halkaasi ka dhacaya Fahad Yaasiin oo Muqdisho durba ka bilaabay qorshe dhalinyaradu ku aruursanayo xilli Soomaaliya ay galayso marxalad doorasho wadaadka dowladda uu xiray Muqtaar Robo oo isbitaal la cararay lagana deerinaya xaaladiisa waxa kale oo daawadayaal qayb ka noqon doona shacabka Galmudug oo su'aalo kulul ku weeraray madaxweyne Xaafi iyo dood xasaasi ah ka dhalatay maxaa ka jira wararka sheegaya in Khayr uu iscasilayo si uu isku soo sharaxo doorashada Soomaaliya 2021 shacabka Muqdisho ee maalmaha soo socda waxay arki doonaan ciidamo cusub oo gabdho u badan kuwaas oo sugidana amniga caasimadda qodobadaasi kuba kale ayaa saaxiibayaal qayb ka noqon doona wararkeena maanta aad daawan doontaan channelkina badweyn subscribe dhigan bareelkana taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada xiisaha badan halkan aan soo gelino xogta ku saabsan villa Soomaaliya wada qorshe halis ku ah doorashada Hirshabelle iyo caqabad soo baxaysa ayaan ku hormari doonaa wararkan ka helina waxa ay sheegayeen in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in waqtigeeda laga soo hormariyo doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle oo ku aadan waqtiga doorashada guud ee qaranka ay dhacayso xogta aan helin waxa ay sheegayeen xukuumadda Soomaaliya ay beesha caalamka iyo xubno ka tirsanba ay kala hadli doonaan sidii loo soo hormarin lahaa doorashada inkastoo aysan weli dhicin in la isku raaco in doorashada Hirshabelle la soo hormariyo doorashada madaxweynaha iyo midda baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxa ay ku aadayeen bilowga bartamaha bisha 10aad ee sanadkan waxayna ku aadantaa doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka ee Soomaaliya xogtan aan helnay waxa ay sheegayeen in xukuumadda iyo waliba xubnaha xubno safiiro ama danjiriyaal ah ay dowladda Soomaaliya qorsheeyeen doorashada guud ee qaranka ka hor laga hormariyo doorashada Hirshabelle la soo hormariyo balse aan la ogeyn sida ay suurtagal ku noqon doonto sida uu sheegay wasiir ka tirsan maamulkaasi 9 bisha Oktoobar ee sanadkan ayuu ku eegay waqtiga baarlamaanka Hirshabelle halka madaxweynaha waqtigiisa xilxeynta ay ku egtahay 15 bisha Oktoobar isla sanadkan sidoo kale doorashada baarlamaanka guud ee Soomaaliya ayaa waxay ku egtaa bisha Oktoobar isla sanadkan iyadoo bilo kadib ay dhici doonaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya bilowga sanadka 2021 lama oga beesha caalamka inay isku raaci doonaan iyo xukuumadda Soomaaliya qorshaha ay wadato ee ku saabsan horumarinta doorashada waase haddii ay dhacdo waxay noqon doontaa mid kale oo xasaasi ah oo buuq siyaasadeed oo bilaaban kara waxaase la ogeyn sida looga dhaadhicin karo xubnaha Hirshabelle iyo waliba madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa qorshaha arintan in doorashada Hirshabelle hadda la gudagalo bilaha ugu horeeya ee sanadkan ee February iyo March qodobada kale waxaa qayb ka maxaad ka ogtahay ujeedka Xaafi Axmed Madoobe ay u tagayeen magaalada Garowe xilli la qorsheenayo in labada madaxweyneba halka ay gaaraan madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inay gaaraan magaalada Garowe caasimadda Puntland iyadoo ay arintaas ay noo xaqiijin ila lagu kalsoonaan karo warar hoose oo helay channelkina badweyn ayaa sheegaya in madaxweynaha maanta uu tagayo Garowe halka Xaafi asaga la filayo in socdaal dhanka dhulka uu ku gaaro toddobaadka dambe magaaladaasi ujeedka socdaalka mas'uuliyiintan waxaa lagu sheegay in ay martiqaad ka heleen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo ka qayb galaya munaasabadda sanad guurada koobaad ee doorashada Puntland wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Puntland ayaa sidoo kale lagu wadaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa ilmaamaha soo socda ay ku baxaan Garowe ay tagaan sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan Puntland munaasabadda sanad guurada koowaad ee doorashada Dani ayaa la filayaa inay isku arki doonaan oo halkaas la isku geeyo siyaasiyiin badan oo ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa lagu yaro ka qayb gali doona dhinacyo badan oo dowladda taabacsan inta ay joogan Garowe Dani iyo Xaaf waxa la sheegay iyo waliba madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe in kulan ay wada arag halkaas ay ku wada qadan doonaan oo ku saabsan doorashada Soomaaliya 2021 xiriirka dowladda federaalka maamul goboleedyada aad u sii xumaanaya iyo sida laga yari lahaa oo qodobada ugu muhiimsan ee hogaamiyaasha ka shiri doonaan marka ay gaaraan Garowe caasimadda Puntland qodobada kale waxaa qayb ka waxaa soo baxaya macluumaad la xiriira Fahad Yaasiin oo Muqdisho ka wada qorshe dhalinyaro badan oo ku aruursanayo
sida ay noo xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin ayaa wada qorshe gaar ah oo ka bilaabaya magaalada Muqdisho. waxa uu nisa ay bilaabi doonto qorshe dhalinyaro badan ay lagu aruurinayo kuwaasoo ah da-dooda u dhaxayso 20 ilaa 30 sano jir si loo xaqiijiyo ammaanka. dhalinyaradan waxaa la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga. tababar kooban kadib waxaa la sheegay in lagu sugi doono qorshaha amniga caasimadda. inkastoo saraakiisha ammaanka ay ka gaabsadeen ka hadlidda arrintan ayaa waxaa hubaal ah in xilliyada habeenkii ah laga bilaabay magaalada Muqdisho in si qarsoodi loo qoro dhalinyaro da-dooda u dhaxayso 20 ilaa 30 sano jir. milkiilaha dowladda Soomaaliya ayaa rabay in nabad sugidda uu ku wareejiyo amniga xamar si ay kaga hortagaan qalqalatooyin la xiriira suurtagalaanshaha in al-shabaab magaalada ay ka fuliyaan weeraro qarsoodi ah. sidoo kale qorshahan waxaa lagu dan leeyahay doorashada soo socota ee Soomaaliya 2020-2021 oo walaaci cabsi badan laga muujinayo maadaama jihada doorashada ilaa hadda aan lahayn. salamida magaalooyinka Garowe Kismaayo ayaa nabad sugidii waxa ay ka hortagaysaa qorshaha dilalka al-shabaab halkaasi ka geysanaya. waxaana soo baxay macluumaad ku saabsan in Fahad Yaasiin uu nabad sugid dhalinyaro yaryar ah oo nabad sugidda ka tirsan oo u diri doona deegaanadaasi. Muqdisho weli waxaa maare loo leeyahay qaraxyada al-shabaab inkastoo hadda dowladda aad moodo inay ku guuleysatay yareynta qaraxyada gaadiidka ahaa ama baabuurta ee ka dhici jiray magaalada Muqdisho kaasoo u muuqda mid sii yaraanaya dhowrkii cisho ee ugu dambeysay. qodobada kale waxaa qayb ka xaaladda caafimaad ee wadaadka dowladda u xiran Mukhtaar Roobo ayaa laga deeranayaa. maanta cisbitaal ayaa lala cararay oo la dhigay wadaadkan. wararka qaaran helin ayaa sheegaya in Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur laga soo saaray guriga uu ka deganaa madaxtooyada qaranka kaasoo muddo lagu ilaalinayay. xubno ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda oo hogaamiye wadaadkan Mukhtaar Roobo ayaa inoo sheegay in wada hadal dheer kadib la isku raacay cisbitaal ku yaala gudaha madaxtooyada ee la dhigo oo cisbitaalkaas oo gacanta ku haysa dowladda Qatar laguna daabeeyo xubnaha mas'uuliyiinta dowladda. cisbitaalkaas waxaa la sheegay in lagu dabiibayo wadaadkan oo xanuun culus soo wajahay. Mukhtaar Roobo ayaa horey kaga tirsanaa saraakiisha sarsare al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inuu hayay xanuun daran dhinacyo badan ah kaasoo u diiday kaas oo sabab u noqotay xitaa inuu diido cuntada uu ka soomo 3 cisho ee ugu dambeysay taasoo keentay in xaaladiisa caafimaad ay sii cakiranto. ila xogaal ah waxay noo xaqiijin in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ku heeba ay cisbitaalka ku booqdeen oo la dhigay Mukhtaar Roobo halkaas lagu dabiibayo. xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda Mukhtaar Roobo iyo sida dowladda Soomaaliya kaga aamustay daryeelka caafimaad ee wadaadkan dowladda u xiran loo fidinayo. maamulka Koonfur Galbeed ninka hogaamiyaha ka Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafti Garan ayaa dhawaan sheegay in xaaladda caafimaad ee Mukhtaar Roobo ay tahay mid aad u wanaagsan. mar wax laga weydiiyay xariga wadaadkan iyo weliba qorshihiisa ku saabsan goorta uu ka shaqeyn doono sida xurriyadda u heli lahaa wadaadkan maadaama ballanqaadyadiisa ay ka mid ahayd in uu ka shaqeyn doono sidii xurriyad buuxa uu heli lahaa wadaadkan gacanta dowladda ku jira. Mukhtaar Roobo ayaa la soo xiray dhamaadkii sanadkii hore 2018 markii uu isku soo sharaxay doorashada Koonfur Galbeed taasoo keentay in ugu dambeyn dowladda federaalka ay xabsiga u dhaadhiciso. qabaha dambe wararkeena soo gaaray maxaa ka jira wararka sheegaya in Khayre uu doonayo inuu iscasilo si uu u tartamo doorashada soo socota ee Soomaaliya. maalmihii dambe waxaa soo baxay warbixino la xiriira in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu qorshe uu doonayo inuu xilka ra'iisul wasaarnimo iskaga tago maadaama markan uu tartami doono xilka madaxweynaha Soomaaliya. markan dib u eegno taariikhda sooyaalka Soomaaliya inta badan ra'iisul wasaarayaashii soo maray badankood ayaa ah kuwa u tartamay xilka madaxtinimada waxaana ka mid ah madaxweynaha hadda talada haya waxa uu mar soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka waa uu tartamay waa uu guuldareystay mar labaad ayuu tartamay waa uu guuleystay. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa markan la tilmaamaya in rajo weyn uu ka qabo inuu u tartamo xilka madaxtinimada Soomaaliya waxaana la sheegay inuu yahay shakhsiyaadka kuwada ugu cadcad ee suurtagalka ah in 2021 uu ku soo bandhigo ololihiisa doorasho heli karana aqlabiyadda inta ugu badan ee baarlamaanka. waxaa soo baxaya macluumaadka la xiriira in saaxiib dhow oo hoose uu leeyahay qaar ka mid maamulada hadda dowladdu khilaafku kala dhaxeeyo sida Jubbaland iyo Puntland oo Khayre xiriir hoose uu kala dhaxeeyo. sidoo kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaa la sheegay in xiriir hoose uu leeyahay xubnaha mucaaradka ku ah dowladda ee sida weyn kaga soo horjeeda
madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo. dadka yaqaana ra-iisul xasan cali kheyre waxa ay sheegaan ama ay ku falanqeeya aragtida siyaasadeed ee ra-isul wasaaraha inay tahay nin aad kaga furfuran kana way aragsan marka loo eego madaxweynaha oo ah nin go-aanadiisu aad adag yihiin. suurtagal ahaanshaha inuu iscasilo ra-isul wasaare xasan cali kheyre ayaa ah wax soo bixi kara bilowga ama bartamaha sanadkan marka la gudagalo qorshaha ololaha doorashada. dowladda federaalk ayaa geli doonta marxalad doorasho iyadana waqti yar ay u hareen madaxda hadda xilalka hayaan. waqtiga baarlamaanka ayaa ku eg bisha oktoobar. madaxweynaha waqtigiisa waxa uu ka egyahay february 2021 waxaana qasab ah ka hor in dowladda ay bilowdo ololo doorasho. kheyre hadduu isku soo sharaxo wuxuu ka mid noqon doonaa xubnaha sida weyn ee miisaanka u yeeli doona doorashada loona saadaalin karo maadaama dadka inta badan ay sheegaan kheyre inuu yahay qof mudan in soomaaliya madaxweynuhu ka noqdo marka loo qiimay 3 sano ugu dambeysay xilka ra-iisul wasaaraha iyo weliba shaqadii adka uu soo qabtay. warbixintan ayaa saaxiib yaal wararkiini maanta ugu dambeysay aad ka daawaneysaan janaalkeena Badweyn Tube saaxiib yaal. wararkeena waa warbixintan warkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono daawadayaal waa baahdi Badweyn oo idin leh nabadgelyo.